10 دقيقة 17:39 وقدن عبد الله وطات متوزي كلهم عن wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo soo walba oo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu darroona waxa kamid ah dagaalo lagu halaagsamay oo ka socda gudaha dalka Itoobiya gobolka Wallo oo ka tirsan deegaanka Axmaarada oo intiisa badan gubanahaya Tigreega oo soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa oo ay ka qabsadeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya dhowrkii maalin ee dagaalku uu socday hanjabaad xoogan oo Tigreega ka soo baxday iyo sidoo kale goobaha hadda ay ku soo wajahan yihiin iyo halka la kala marahayo ayaan idin soo gudbin doonaa qaramada midoobay oo war ka soo saartay dagaalka dalka Itoobiya beesha caalamka oo qayla afka furatay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay in TPLF uu wada hadalka uu la galahayo shuruud la'aan isagoo sheegay in wax waliba oo codsadaan uu u yeeli doono dagaal xoogan oo ka socda agagaarka caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya kaasi oo jabhadda xoreynta Oromiya ay soo laba jubaareen jabhadda xoreynta Oromiya ayaa dhinaceeda sheegtay in ay goolo waaweyn ka gaadhay dagaaladii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay afayeenka Tigreega oo u hanjabay maamulka dawladda deegaanka Soomaalida kuna tilmaamay ceeb weyn in ciidamo u soo diraan deegaanka Axmaarada oo ay difaacaan wuxuuna ugu baaqay in mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalidu ay sugaan inta ay halkaasi ka soo gaarayaan taasi oo iyadana cabsi gelinaysa maamulka dawladda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga oo hadalhayn weyn ay ka dhalatay cambaareyntii maamulka ugu sareeya dawladda deegaanka Soomaalida ay dusha uga tuureen dagaalada ka socda deegaanka Canfarta iyo midka Axmaarada waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegaynaa qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan iyo xaaladda ka taagan dalka Itoobiya dagaaladu goobta la kala marahayo sida rasmiga iyo dagaalada hadda halka ay ka socdaan guulaha la kala gaaray iyo sheegashada dhinaca dawladda federaalka iyo sidoo kale TDF ama ciidamada Tigreega ee loo soo gaabiyo TDF sheegashadooda ay guulaha waaweyn ka sheeganayaan rajadii Tigreega oo moodid inay soo laabatay iyagoo dagaaladii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyayba ay guula waaweyn ka gaareen qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsanaya warkeena kaga bogoreysaan haduu eeba idma balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idin ka codsanaynaa hadii uu ku soo gaaro muuqaalka like saar oo aragtidaada nagu reeb qaybta commentiga oo nagu soo biro naga mid noqda oo aragtidiina nagu reeba qaybta commentiga sida ay nala tahay xaaladda iyo sidaas deegaanka Soomaalidu ay uga faa'iideysan karaan burburka Itoobiya iyo dagaaladan baahsan sida ay uga gaashaaman karaan ee ka socda gudaha dalka Itoobiya aynu ku bilownay dagaaladan xoogan ee shantii maalin ee ugu dambeeyay ba dib u soo laba rogolciyay ka socda gudaha dalka Itoobiya ayaa saameyn weyn ku yeeshay deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta iyadoo in ka badan 20,000 ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay in ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah in la gaarsiiyo ayna u badan yihiin dadkaasi in ay barakaceen shantii maalin ee ugu dambeysay ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen dhowrkii maalin dagaalkii socday isla markaana soo bandhigay in ka badan 12 magaalo oo ay sheegeen inay ka qabsadeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya qabsashadan magaalooyinkani ee ciidamada TDF ee Tigreega ay soo bandhigeen ayaa rajadoodii Tigreegu aad moodaa in ay dib u soo laabatay iyadoo ciidamada ay simaynayaan guulo waaweyn isla markaana ay horay ugu soo siqahayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada dagaalka intiisa badan waxa uu ka socdaa deegaanka Axmaarada gaar ahaan gobolka Wallo oo intiisa badan ay degaan qoomiyadda Axmaarada magaca Wallo oo loo yaqaano qoys kamida ama qabiil kamida deegaanka Axmaarada ayaa iyagana martigelinaya sanadihii ugu dambeeyay dagaalo xoogan oo halkaasi ka socday gobolka Wallo intiisa badan hadda waxa la sheegay in uu gacanta ka baxay isla markaana ciidamada TDF uu gacanta u galay iyadoo Tigreegu ay soo bandhigeen guulaha ay halkaasi ka sameeyeen Tigreegu waxay sheegeen in magaalo waaweyn oo ay kamid tahay Lalibela iyo sidoo kale Qubo magaalooyinkaasi gabi ahaanba iyo sidoo kale Waldiya inay gacanta ay ku dhigeen oo magaalooyinka ciidamadoodu ay ka sii siqayaan oo hadda duulaanka ay uga sii qaadeen dhinaca magaalada Deze iyo Kombolja magaalooyinkaasi ayaa qax laga dareemayay 24 saac ee ugu dambeeyay iyadoo Axmaaradu ay u qaxayso dhinaca caasimadda maamulka ama caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa Axmaarada ayaa jabkii ugu weyn halkaasi lagu gaarsiiyay iyadoo Tigreegu ay wacad ku mareen inta ay ka gaarayaan Addis Ababa in ay sii wadayaan dagaalka waxay sidoo kale Tigreegu ay sheegeen in dagaalku loogu magac daray waa bari isla markaana uusan istaagaynin wax wada hadalana aysan la galaynin xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhinaciisa qayla afka furtay isla markaana ugu baaqay Tigreega in ay miiska wada hadalka ay ku soo laabtaan shuruud la'aanna uu la galayo wada hadalka iyadoo Tigreegu ay cabashooyin ka muujiyeen xilliyadii wada hadaladu ay socdeen isla markaana
shuruudo adag ay dowladda federaalka ku xidhay in wada hadalladaasi la galo. Tigreega ayaa ku andacoonaya in dowladda ay shuruud ka dhigtay in laydhka iyo biyaha iyo sidoo kaleeto qadka teleefonka loo sii daayo maamulka Tigreega, sidoo kalena loo furo marinka gargaarka bini'aadanimo uu u soo mari lahaa. ay dowladuna shuruud adag uga dhigtay inta ay mas'uuliyiintu miiska wada hadalka ka kulmayaan inaan intaasiba la sii dayn doonin. waxayna sheegeen intaasi ay ku dhalisay in dagaalka dib loo bilaabo oo loogu magac daro dagaalka waa beriga ama qorax ka soo baxa. Tigreega ayaa sheegaya in dowladda shuruudaha ay sheegtay in ay tahay go'doominta iyo burburinta dhamaystirka dilidda iyo sidoo kaleeto cunaqabataynta shacabka Tigreega iyo baabiinta shacabka Tigreega, isla markaana dowladdu aysan ka go'nayn wax wada hadal inay la gasho Tigreega. waxayna sheegeen in iyada duulaanka intiisa badanba ay iyadu soo qaaday oo ay qorsheynaysay 7 bilood ee wada hadalku uu socdayna dowladdu ay istiyaarinaysay oo ciidamadii ugu badnaa ay ku soo daadgureynaysay fariisimaha iyo sidoo kaleeto difaacyada ay hadda ciidamadoodu ay jabiyeen. Tigreega ayaa sheegay in ay iyagu dagaalka ay arkeen sansantiisa, isla markaana ciidamadoodu isdifaacid iyo diyaargarow ay sameeyeen kadib markii dowladda federaalku ay ciidamadii ugu badnaa halkaasi ku soo daadgureysay ciidamo aad u tiro badan iyo istiyaarinna ay ku jirtay 7 bilood ee ay sheegaysay in wada hadal lala galayo kooxda Tigreega iyo jabhadaha ka dagaalama gudaha dalka Itoobiya. afhayeenka xukuumadda Tigreega ayaa sheegay in maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada iyo caruurta yaryar ee ay u soo dirahayaan deegaanka Axmaarada si ay u difaacaan Axmaarada ay tahay qorsho ay ka shalay doonaan, wuxuuna hanjabaad adag u diray madaxweyne Cagjar iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dowlad deegaanka Soomaalida. shalay ayay ahayd mas'uuliyiinta ugu sareysa dowlad deegaanka Soomaalida markii ay war-saxaafadeed ay ku soo saareen ay ku cambaareynayaan dagaalka ka socda deegaanka Canfarta iyo Axmaarada, iyagoo sheegay in ay Tigreegu ay ka shalay doonaan oo lala dagaali doono Etoobiyana ay ugu booriyeen in ay la dagaasho oo iska celiyaan ciidamada Tigreega ee sida fooshuxun ama sida galdarrada u soo weeraray deegaanada nabadda ee dadkooda lagu xasuuqayo ay ku xasuuqayaan ciidamada TDF ee Tigreega. waxaana Getachew Reda uu sheegay in war-saxaafadeedka mas'uuliyiintaasi ay soo saareen ay ka shalay doonaan deegaanka Soomaalidana ay shalayto weyn kala kulmi doonaan war-saxaafadeedka iyo garab istaagga iyo ciidamada ay u soo dirahayaan deegaanka Axmaarada ee la doonayo in lagu difaaco Axmaarada iyo sidoo kale qadiyadda deegaanka Axmaarada iyo Tigreega u dhaxaysa. wuxuuna sheegay maamulka madaxweyne Cagjar iyo xukuumaddiisaba in lala xisaabtami doono ayna istiyaariyaan markii ay soo gaadhaan halkaasi oo ay iska difaacaan ciidamada TDF ama Tigreega. wuxuu sidoo kale sheegay in arinta maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu ay ku socdaan cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan haddii aysan shacabka aysan ka hortagin arintaasi. maalmihii ugu dambeysayba waxaa socday abaabul ciidan iyo sidoo kale abaabul lagu cambaareynayo dagaalka Tigreegu ay ku soo qaadeen deegaanka Canfarta iyo midka Axmaarada, iyadoo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ugu sareeya ama madaxda ugu sareysaba ay warar kala duwan ka soo saarayeen dagaalkaasi iyo walaacyo baahsan oo ku aadan dagaalka dib ugu cusboonaaday gudaha dalka Itoobiya. waxaa sidoo kale shacabku ay cabsi weyn ka qabeen in ciidamo loo diro deegaanka Axmaarada, iyadoo la ogaa 2021 in ciidamo new police oo deegaanka Soomaalida ka socda ay ka dagaalamayeen buuraleyda gudaha deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale gabi ahaanba furimaha hore ee dagaalku ay ka socdeen, taasi oo Tigreegu ay ogaayeen isla markaana ciidamada new police markii dambe ayagoo iskood u diideen in dagaalaha ay halkaasi kaga jiraan dibna loogu soo celiyay magaalada Jigjiga ee caasimadda maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana shacabku ay ka dayrinayeen xaaladda iyo abaabulka ciidan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga PP oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga diyaarinayeen sidii ciidamo loogu diri lahaa deegaanka Axmaarada, kuwaasi oo qayb ka noqonaya dagaalka lagula jiro Tigreega, isla markaana ka garab dagaalami doona ciidamada new police ee deegaanka Axmaarada iyo kuwa militariga ee halkaasi difaaca kaga jira. Tigreeguna waxay arintaasi baaq ka soo saareen in shacabku ay ka hortagaan arintaasi oo marna aan la qaadan karin in caruur yaryar laga soo qoro magaalooyinka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo gabi ahaanba gudaha dowlad deegaanka Soomaalida kadibna ay difaacaan qowmiyadda Axmaarada iyo caruurtooda oo halkaasi ay ku dhintaan oo waxba aysan ka galin. wuxuuna sheegay markii ay ciidamada Tigreegu soo gaaraan xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ama ayba qabsadaan xukunka ha iska difaacaan haddii ay awood leeyihiin buu yiri maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. dhinaca kale abaabulkii ugu weynaa iyo sidoo kale qax ay shacabku qaxayaan ayaa ka socda gudaha deegaanka Axmaarada. magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada ayaa laga dareemayaa qalalaasa siyaasadeed iyo sidoo kale abaabul ciidan, iyadoo dhanka kalena shacabku ay iskaga qaxayaan oo ay u cararayaan goobaha ay u maleynayaan inaysan soo gaari karin Tigreega.
dhinaca kaleetana dagaalo lagu halaagsamay ayaa ka socda agagaarka caasimada iyadoo ciidamada jabhadda xoreynta Oromia ay dagaaladooda soo laban laabeen isla markaana ay dagaalo xooggan oo baahsan ay kula jiraan ciidamada militariga ee bila ka hor la geeyay gudaha dowlad deegaanka Oromada iyadoo dowladdu xilligaasi ciidamada ay halkaasi geysay ay ugu magac dartay kala sareynta sharciga waxaana ciidamadaasi la sheegay inay ahaayeen ciidamadii xilligii hore Tigreega dagaalka kula jiray oo furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan deegaanka Axmarada iyo Canfarta laga soo celiyay dagaalkana xilligaasi lagu wajahay dhinaca deegaanka Oromada ama jabhadda xoreynta Oromia iyadoo Tigreegu xilligaasi xabad joojin rasmi ah la kala saxiixday isla markaana aan dagaal weyn markaasi uusan ka taagnayn dhinaca deegaanka Tigreega dagaalada halkaasi laga waday ee ciidamada jabhadda xoreynta Oromia iyo ciidamada militariga dalka Ethiopia lagu jiray ayaa la sheegay inay dagaalkaasi kala sareynta sharciga loogu magac daray ay qayb ka haayeen ciidamada New Booliska iyadoo ciidamada New Booliska ay ka soo hadi jireen buuraleyda iyo sidoo kale shalan qowtiyaha deegaanka Oromada ay dagaalada lagu jiro jabhadda xoreynta Oromia waxayna marar badan ciidamada New Booliska halkaasi ku soo bandhigeen guulo waaweyn oo ay ka gaadheen dagaaladii ay la galeen jabhadda xoreynta Oromia iyagoo marar badan sheegay inay fariisiimo iyo sidoo kale goobo militariga ay ku tababaran jireen ciidamada jabhadda xoreynta Oromia cagta la mariyay dhinaca kalena waxay sheegeen in ay jab weyn u geysteen ayna qabteen in ka badan 300 oo dagaalyahan oo ka tirsan jabhadda xoreynta Oromia xilligaasi ay ciidamada New Boolisku ay halkaasi dagaalka ugu jireen taniya intii dagaalku uu ka bilowday gudaha dalka Ethiopia ayaa la soo tabinaya ciidamadii ugu badnaa New Boolis in mar waliba loo dirayo maamul goboleedyada kale iyagoo ka dagaalamaya gudahaasi ama goobahaasi dagaal kaga jira waana markii saddexaad oo hadda lagu tumeeyo madaxweyne Mustafa Cagjar inuu ciidamada halkaasi u dirayo oo ka dagaalgali doona gudaha deegaanka Axmarada dhinaca kale dagaaladii ugu dambeeyay jabhadda xoreynta Oromia ciidamada militariga ay wada galeen ayna ku wada galeen agagaarka caasimada Addis Ababa ayaa la sheegay in jab weyn loo geystay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyadoo jabhadda xoreynta Oromia ay sheegeen kolonyo baabuur oo u socday dhinaca furimaha hore ee dagaalka uu ka socdo in gabi ahaanba ay cagta mariyeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa maalin ka hor arrintaasi cambaareeyay kuna tilmaamay in ciidamadooda si gaar ah loo beegsaday isla markaana lala xisaabtami doono ciddii beegsatay iyo ciddii dhibaatada inta dhan u geysatay iyadoo mas'uuliyiintu ay walaac weyn ka muujiyeen dagaalada si xoogaysanaya ee jabhadda xoreynta Oromia iyo sidoo kale jabhadaha kaleeto ee ay hubayso Tigreega ama ka amar qaataba Tigreegu ay dagaaladooda si laabahayaan xilli dawladuna ay ku dhawaaqayso in wada hadal iyo sidoo kale miiska wada hadalada dib loogu laabto midowga Afrika ayaa iyagana war ka soo saaray oo ku sheegay in dhinacyada dagaalka ay joojiyaan isla markaana ay ku soo laabtaan miiska wada hadalka si loo wada xaajoodo loona afjaro dagaalkan si daba dheeraaday ee qoomiyadaha iyo sidoo kale siyaasadda saameynta weyn ku yeeshay hor socodka gudaha dalka Ethiopia dhinaca kale qaramada midoobay ayaa iyadana baaq adag ka soo saartay iyadoo ku tilmaantay in marinka iyo sidoo kale beegsashada shacabka xasuuqa maalmihii ugu dambeysay la sheegayay in ay dhinacyadu ka waantoobaan isla markaana ay joojiyaan xabadda iyo dagaalka baahsan ee ku sii fidahaya gudaha dalka Ethiopia qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxay sheegtay 20 milyan oo qof oo Ethiopian inay u baahan yihiin kaalmad bini'aadanimo oo degdeg ah in la gaarsiiyo iyadoo ay sheegtay goobaha ugu adag ama dadku ay ku dhamaanayaan ay adag tahay inay halkaasi kaalmo gaadho oo gawaaridu ay gaadhaan qaramada midoobay ayaa sidoo kale walaac weyn waxay ka muujisay deegaanka Tigreega oo maalmihii ugu dambeeyay lagu eedeynayay hay'adaha kaalmo bixiyaasha ama gargaarka bini'aadanimo gaarsiiya hubka casriga ee Tigreegu ay isticmaalayaan iyo lacagahan iyo dhaqaalahan faraha badanba in loo dhaxraaciyay gargaarkii bini'aadanimo gawaaridii faraha badnaa ee gaadhay deegaanka Tigreega qaramada midoobay ayaan dhinaceeda eedeymahaasi aan ka hadlin walina ku hawlan sidii ay dadkaasi wax loo gaarsiin lahaa balse xafiiska looga arrimiyo dalka Ethiopia gaar ahaan ee Addis Ababa ee ku yaala kilo arad ayaa sheegaya in qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka degdega ee Tigreega ku sii qulqulahayay bilihii ugu dambeysayba inay halkaasi ay ka wadeen falal guracan iyo sidoo kale hubkan casriga iyo waxyaabaha qarxa ee Tigreegu ay u isticmaalayaan ciidamada iyo sidoo kale dagaaladan hadda socda inay halkaasi lagu gaarsiiyay dhinaca kale waxay dawladda federaalka eedeymo dusha uga turtay dawladda Suudaan iyo Masar oo sanadii ugu dambeeyay xurguf siyaasadeed uu kala dhaxeeyay iyadoo dhinaca kale xulufadeeda aan hoos u dhowreynin dagaalada ay ka wadaan gudaha Tigreega oo fawaarki oo in ka badan dhowr iyo 20 sano fadhiya kursiga Eritrea ugu sareeya ayaa xulufo hoose iyo saaxiib dawla ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuuna dhinaciisa dagaal kaga soo qaaday ciidamada Tigreega iyadoo taasi ay ugu gol leeyihiin sidii loo kala jabin lahaa ciidamada Tigreega ee ku soo qulqulaya deegaanka Axmarada iyo midka Canfarta loona dhimi lahaa xagwaarahooda iyo awoodooda dhinaca kale dawladda federaalku waxay wadaa ama ciidamada dawladda federaalka ee cirka waxay wadaan duqeymo xoogan oo ay ka wadaan caasimada deegaanka Tigreega ee Maqale si loo
loo wiiqo awoodooda iyo sidoo kaleeto in ciidamada horay ugu soo qulqulahaya gudaha dalka Ethiopia ay dib uga laabtaan ujeedka dawladda ay ka leedahay duqeymaha iyo sidoo kaleeto xasuuqa iyo dhinaca kale dagaalka ka socda Eritrea ee ay xaggaasi ka soo qaadeen ayaa ah sidii loo kala jabin lahaa ciidamada Tigreega loona tusi lahaa xasuuqa ka socda gudahooda si ay dib ugu laabtaan oo ay dib ugu difaacdaan ama ay u ogolaadaan wada hadallada dawladdu ay ku baaqaysay ee midowga Afrika uu hogaaminayo Tigreegu se waxay ku tilmaameen duqeymahaasi inay naflacaari tahay dawladuna aysan haynin ciidamo isku dhafan oo sidoo kaleeto la dagaalami kara ciidamada Tigreega ee TDF isla markaana ay iskugu soo hadhay duqeymo iyo gantaalo meel lagu tuuro oo caruurta lagu xasuuqo balse eedeymahaasi dawladdu kama aysan jawaabin oo wax wara kama soo saarin inay xasuuq u geysatay ama ayba duqeysay caruur iyo haween sida Tigreegu ay sheegeen saddexdii sano ee ugu dambeysay ee dagaalku ka socday gudaha dalka Ethiopia ayaa saameyn weyn wuxuu ku yeeshay dhaqaalaha horu socodka isdhexgalka bulshada iyo sidoo kaleeto kaabayaasha dhaqaale ee dalka Ethiopia uu lahaa iyadoo gabi ahaanba la sheegayo in dalka Ethiopia hadda uu faraha ka baxay oo magac kaliya uu soo haray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa u muuqda inuu ku guul daraysay siyaasadii iyo isku wadistii isdhexgalkii bulshada iyo qowmiyadaha iyo isku wadidii maamul goboleedyada in uu ku guul daraystay isagoo dhanka kalena fiirinaya caqabada koobaad in ay tahay dhinaca Tigreega isla markaana loo baahan yahay in la soo afjaro dagaalka dhinaca Tigreega ama dagaal lagu soo afjaro ama wada hadal lagu soo afjaro marar badan wuxuu ka dhawaajiyay in Tigreega wada hadal uu la galahayo balse jabhadaha kaleeto dagaal lagu soo afjari doono isagoo ujeedkiisa iyo sidoo kaleeto aragtidiisa u muuqato in khatarta koobaad ay yihiin dhinaca Tigreega kuwaasi oo marar badan lagu eedeeyay jabhadaha gudaha dalka Ethiopia ka dagaalamaya oo ka badan ilaa iyo 7 jabhadood inay iyagu hubaynayaan kuwa kalena ay ku hawlan yihiin dagaalkii lagu soo qaaday dawlad deegaanka Soomaalida ee ururada argagixisada ay ku soo qaadeen ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen Tigreega wax waliba oo falal amni darra oo ka dhaco gudaha dalka Ethiopia waxa lagu eedeynayaa Tigreega inay ka dambeeyeen waana khatarta ay aaminsan yihiin inay tahay oo kaliya Tigreega oo la soo afjaro haday nabadgeliyo iyo sidoo kale xukun sii raaga iyo isdhexgal bulshada la doonayo 3 bilood ka hor ayaa magaalada Addis Ababa laga qabtay in ka badan 22 xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxaha Daesh ee argagixisada loo yaqaano waxaana arintaasi lagu eedeeyay Tigreegu inay ka dambeeyeen oo kooxahaasi si Malaysia ay ku soo galiyeen xilligaasi dawladdu waxay u taqaanay Tigreega iyo jabhadaha gudaha dalka Ethiopia ka dagaalamaya kulligoodba in ay yihiin argagixiso oo dawladdu waxay baas marisay 2020kii argagixiso in ay yihiin dhammaanba kooxaha Tigreega ka amar qaata iyo gabi ahaanba koox jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia dawladdu ma aysan cadaynin mowqifkeedii ku aadanaa in ay kooxahaasi argagixiso yihiin dagaal lagu soo afjari doono balse argagixiso sida wada hadal loola galahayo ma aysan cadaynin dawladdu waxay ku dhawaaqday in Tigreega ay wada hadal la galayso oo sida ugu dhaqsiya badan miiska wada hadalka la galahayo iyadoo buugaagta iyo sidoo kale documentationka dawladdu ay ka qortay uu yahay in ay argagixiso yihiin oo kooxaha shabaab iyo sidoo kale Daesh iyo Tigreega jabhada xoreynta Oromia Bishaangul Gumis iyo Gambela intoodaba ay wada yihiin argagixiso iyo cadawga Ethiopia lana dagaalami doono daawadayaal warkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan wixii ka soo kordho dagaalada lagu halaagsamay ee ka socda gudaha dalka Ethiopia tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tagaynaa amaana